السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن وحنا هاي عويس حسن محمد Media and Communication Expert وحن حريرين دونا بنا الإسكاشن آدي مهم لما نودين مهد علينا وحن رجينا يا إنصافك قفل بابوسكي سوسافر يستو ضدنا أما بنا الكين وحكو سابسية هاي كالين تبرها بولشدة قابين تا إسبدل كبولشدة ما أنت الدنيا العصرية digitalization ka ama digital ka wuxuu noqday laga maarmaan sida aan ugu baahannahay waxyaabaha kale asaasiga ah ayuu internetka iyo digital-ka ba asaas ugu noqdeen banalkeena wuxuu diiradda saari doonaa qaabeynta baraha bulshada age-ka aan noolnahay digitalization ka ah jiilka maanta sidee tahay uga faa'iideystaan iyo macluumaad la xiriira waxaa kala qayb galaya marti aad iyo aad muhiim u ah oo loo soo qolay barnaamijkan banalka koowaad waxaan u yeerayaa Dr. Zaima Abdullahi Haji oo psychologist ah kana tirsan macahadka cilmi baarista iyo wada hadallada ee Iraad ila soo dhaweeya Dr. Zaima sidoo kale waxaan soo dhaweysaan Engineer Sayid Ali Gaabane oo ah khabiir computer science ku takhasusay isla computer science ka lecturer ka ah Muqdisho University sidoo kale cyberka iyo teknolojiyada aad ugu takhasusay ila soo dhaweeyo Ustaad Sayid Ali waxaan u yeerayaa Mudane Cabdullaahi Raagi Sayidka oo social media analyst expertina ah kana tirsan Damal platform ahna turjumaa buugaagta qora barnaamijkan ugu yeeraya ila soo dhaweeyo Ustaad waxaa sidoo kale aan u yeerayaa Dr. وأستاذ عبد القادر محمد حسن وخبير بنك وحبرشة قدوميها دكسيد وحبرشة قبل كبنادر إلى سلوية إن كبدن شان إلى 20 سنة أي أقد ميني وحبرشة سجود واحد إلى سلوية سان كسوق قبل ياش برنامج كنا سلو هذا ترى كانوا نقاقيا دياردو يدولسا سومن كله حرتو فرصة أن يصير دونا مركب بنا كان كسر رماضة أو سؤال الأحتال كقرب قلياش مركب وحيد جيدين أيان سؤاله أنا عنك لو ذاك دونا كدم وحنا يصير دونا أركتدينا سؤال شكوات إبرامج كينان وحن كنا جنينا ما أنت استعمال كبره بالشدة الإنترنت كوحن كهلا وقفر بدن أو إنا ماشية موجودة معلومات قفل بو نجمد موجودة هسي وحلاقي يابا إنه كوهفتو kuwa uusan u baahnayn kala kulmo focuska ay ka lumiyaan sidoo kale waxa saameyn ku yeesha maxaa la yiraahdaa go'aan qaadashada uu ku qaadanayo internetka ilaa heer intee la eg ay xogtani ama xogaha aan ka helno internetka yihiin kuwa sugan hufan la kala soocay laguna kala soonaan karo su'aashaas aan ku bilaabaya waxaan siinayaa Dr. Zaima Abdullahi Haji xogaha internet kan ka helno inta in laga lagu kalsoonaan kara lana xaqiijiyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah dhamaan martida sharafta leh halkan fadhido ugu horeyso madaxda jaamacadda Muqdisho madaxda macahadka daraasaadka Soomaaliya tamam ya dhamaan miidiyaha waxaan idinku salaamayaa islaamka salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib maadaama waqtigu aad u kooban yahay waxaan hore u gali doonaa jawaabta su'aashaasi dhamaanteen waxaan isku waafaqsanahay ilaa hadayna laga soo hadlaayay saameyn inay nagu leedahay baraha bulshada haddaba sidee lagu kalsoonaan karaa baa la yiri xogtaasi run ahaantii baraha bulshada waxaa yimaada xogo kala duwan waxaa yimaado xogo dhab ah oo wax ka jiraan waxaa ku jira kuwa maran habaabin ah waxaa ku jira kuwa been ah oo sal iyo raad toona lahayn waxaa jirtay daraasad laga sameeyay wadanka Mareykanka oo waliba mar dhow la sameeyay 2023 waxaa daraasadaasi sameeyay Pew Research Center oo Mareykanka ku yaala wuxuu leeyahay boqolkiiba 53 wararka la soo dhigo baraha bulshada waa kuwa been ah oo aan sal iyo barbar lahayn wuxuu kaloo noo cadeeyay daraasadaas waxay cadeynaysaa boqolkiiba 84 wararka yaala baraha bulshada waxay facilitate gareeyaan ama ay fududeeyaan in beentu ay faafto ayuu leeyahay
marka halkaa waxaan ka garan karnaa haddii wax ka badan 50% waxa ku jira ay been noqdeen waxaad u baahan tahay marka inaad waqti faran ku bixiso sidii aad tan dhabtahay ay xogta saxda ula soo bixi lahayd waxaan rajaynayaa marka inaan la soconno wax walba oo la soo dhigo baraha bulshada inaysan run ahayn intaa waxaa sii dheer Majestic Center of Technology wuxuu asagana sheegayaa in beentu يعني لحلاب inay ka dheerayso runta which is very يعني fantastic يعني haddii xataa beentii ay jirto haddana faafitaankeeda inay intishaar samayso ama spread noqoto way ka badan tahay 6 laab runta mar sida ay u socoto taas macnaheedu waxa waaye haddii runtu ay 2 mitir ay gaari karto 1 daqiiqo ku gaari karto beentu waxay ku gaari kartaa 64 jeer ayay waxay ku yani 64 mitir ayay gaari kartaa inta ay soo mareysay runtii 2 mitir oo kaliya which is very yani critical wax aad u dhib badan una xanuun badan loona baahan yahay inaan aad iyo aad uga feejignaano waxa la soo dhigayo baraha bulshada inaynan dhab ahayn ay tahay xog aan dhamaystirnayn iyo xog been abuur ah inay aad ugu badan yihiin ay ka badan yihiin xogta dhabta ah ee la soo dhigo baraha bulshada أنا ما تصنتها دكتور زعيمة وحسينا يسوع سؤاشاسي أستاذ عبد الله راجل سيدك حديب بنتها أي كسر عبرتها شمال وتنتهي هذا بين فكترهم بقارته ما حد عليهم قدر الهيد استعمال كاس دكتور وشاكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وأنا أكسل. بركة كوباد مع السلامة يا مدحدة كسوة خير الشيء برنامج كسوة خير شكله. طبعا هم قليل يا بارك الله بيتنا شركة أكسوس. سؤال شاء حكت براها المشكلة تعبا يسمونات هذا وحنكون رئيسين يا حفظهم مهمة. لبرد عرض يا براها المشكلة حكت الأول هذا عالم برضه وها مال كلا يعني اسبدل الوضع تعالى كواد waxay ahaayeen kacdoonadii dalka carabta ka dhacay dacdada labaadna waxay ahaayeen doorashadii la doortay madaxweynaha Trump sanadkii 2016 dacdada hore waxay tusaale u ahayd inay baraha bulshadu dadka caadiga iyo dadweynaha ay siiyeen awood ay ku saameeyaan ajendaha laga doodayo saxaafadda siyaasadda iyo arrimaha bulshada dadka caadiga riixaya oo maxaa ku raahdaa ajendaha dejinaya oo dareenka cabiraya oo ra'yiga gudbinaya oo xogta gudbinaya oo awoodii markii hore taale xarumaha warbaahinta ee ay dowladuhu lahaayeen ee shirkaduhu lahaayeen ee siyaasad marka hore la sii xadiday oo cayimo lagu maamulayo waxay timid garoonka bulshooyinta baraha bulshada lagu suurtageliyay dhacdada labaadna waxay dhacdadii 2016 lagu doortay madaxweynaha Mareykanka oo dalalka reer galbeedka oo xarunta ama halka ay ka soo kameen baraha bulshada tusisay hay'adihii dalalka xukumayay deep state waxa la dhahaa ama dowladii mataqaana dalka hay'ad jirtay inaanay gacanta ku hayn lahayn kadib waxaa bilaabmay markaa in dib loo qaabeeyo baraha bulshada laba nooc baa loo qaabeeyay markaa in xadidaad badan la sameeyo aad waxa caan ah ereyo badan aan la isticmaali karin qadiyado badan aan laga hadli karin magac badan aan social media la gelin karin sawirro badan oo macnaha mawduucyo badan oo aan social media laga hadli karin ayaa hadda caan ah laakiin waxay soo bilaabtay 2016 waxa kale nooca xadidaadda markaa shirkadaha sameynaya iskale baraha bulshada nooca labaad xadidaadda waxay noqotay markii hore arkay dadweynuhu ka isticmaalayeen inay nidaamyada ka isticmaalaan marka dowladaha iyo sirdoonnada iyo hay-adaha maxaa ku dhaha dadka inay saameeyaan rabaan xataa shirkadaha inay leeyihiin ciidamo malaayiin ah oo baraha bulshada jooga oo raayil caamka inay saameeyaan raba oo colaado inay abuuraan raba oo dalal inay ridaan raba oo dalal inay dhisaan raba oo maxaa ku dhaha dalal inay xisku geliyaan raba hadda marka wixii la odhan jiray saytka ofiska ama barnaamijyada sirdoonnada ay raayil caamka ku saameeyaan oo boqolkii sanneena soo dhaafay saxaafadda mari jiray hadda wuxuu maraa baraha bulshada twitterka haddaad gasho facebooka haddaad gasho malaayiin bog oo safxadood oo magaca iska caamale oo xafiis ay ka tirsan aan la aqoon oo cid ka dambaysa aan la aqoon oo maanta dad muqdisho kaaga warramaya ku jiro mataqaani meel ka socdaan aad magaalada ku nooshahay laakiin ayaga kaaga warramaya marka waxaa abuuraya
mob mentality in dad maxaan ku dhahdaa dad laga horgeeyo dad nidaamkooda laga horgeeyo axsaab iyo afkaar mucayan dadka laga horgeeyo dalal in la xayeysiiyo oo maxaan ku dhahdaa dalal shisheeye masalan soomaaliya loo xayeysiiyo dadalkiina soo qaadano marka waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aasha jawaabteeda xogaha baraha bulshada yaalaa ma sugna marka koobaad boqolkiiba boqol ma sugna hadday sugan yihiin oo xogtu saxan tahayna way jihaysan tahay oo ajende iyo siyaasad ay u socotahay xog iska socoto oo faramaran oo sidii waayadii hore maxaan ku dhahaa dadweynuhu ay xogta see rabaan usoo qori jiraan ay ahayd ma aha way aad u mahadsan tahay waxaan la soconnaa in badan idin ka mid ah aad ku aragteen internetka saddexda si keli ugu horreyso marka aad daawato sheekada xigtaa inay noqonayso midtaas la mid ah taasi waxaa sameeya algoritmka amaba wixii lagu tababaray macluumada iyo internetkaas artificial intelligence-ga taasi waxay kaliftaa qofka inuu dooqa ka lumo wixii uu rabay mararka qaar inta waddadii ka lumo uu qaato macluumaad inta badan kuwii uu doonayay aysan ahayn haddaba ma dhihi karnaa algoritmka waxa uu lumiyo dooqa qofka iyo xorriyadda qofka akhristaha ah dhagaystaha ah ama daawadaha ah su-aashaas waxaan siinayaa injineer sayid cali gaabane saddex daqiiqo ku siiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عيادة شرفت مرت شرفت كل جيل وحنا السلام يا سلامة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالتذكير وحرب الألغوريثم وحوي هاي سيكون شقيان مراد بالشدة inta aan tilmaami ka hor inaan xog yar oo dhaata ah aan idin wadaago baraha bulshada waxaa ka mid ah Facebook oo loo yaqaano Meta waxaa ku xiran 3.1 bilyan oo qof ayaa maanta register ka ah amase users ka ah YouTube sidoo kale 2.5 bilyan ayaa ku xiran TikTok waxaa ku xiran 1.6 bilyan Twitter ka ugu yar intaan soo qaatay 550 milyan ayaa isagana ku xiran total revenue-ga iyo maaragtay dakhliga ay ka soo saaraan xayeysiinta ay sameeyaan waa sanadkii la soo dhaafay oo keliya 2024 162 bilyan oo dollar ayay soo saareen markii la isku daro wadamadeena geeska Afrika ku yaala oo Kenya, Ethiopia, Soomaaliya, Uganda iyo Tanzania budgetkooda sanawiga ah ama maaragtay miisaaniyadooda waxaa ka badan baraha bulshada lacagta sanadkii soo saaran meesha waxaa ka dareemaysaa geymka iyo waxa socda inaysan ahayn oo keliya waxaad arkaysaan oo ay jiraan waxyaalo kale oo daaha gadaashiisa ka socda algorithm waxaa la yidhahdaa waa program ama barnaamij loo sameeyey in dadka maaragta waxay jecel yihiin ay tusaan simbali waxay jecel yihiin inay tusaan ujeeddada loo tusaayana waxa waaye in tensionka iyo maaragta dareenkaaga mar kastaba la haysto oo la soo jiito haddii la soo jiito oo the more aad sii joogto platformkana the more platform uu ka faa'iidaysan karo inuu xayeysiimo ku tuso si uu u sameeyo balaayiintaas dollar oo aan ka sheekeynay marka baraha bulshadu uma samaysna waddan inay kulkuliyaan waddanna ay cadaadiyaan oo keliya laakiin algoritmku wuxuu samaysan yahay inay dhaqaala sameeyaan marka qof kasta waa customer waayo gardaad maqli jirteen service in la iibiyo ama product maanta productyadii waxaa la iibinayo waxaa kusoo biiray human attentionkooda bini aadamka attentionkiisa in la haysto ayaa maanta ka mid ah suuqa badeecada taala marka annaga dhammaanteen waxaan nahay badeeco waxaan badeeco ku nahay social media algoritmka markuu arko oo aad soo gasho waxaad laagaraysay waxaad share garaysay muuqaalka cabaar u hakatay ya scrollka sawirkaad daawatay waxaad click siisay xogtiisa ayuu urursadaa wuxuuna sameeyaa profile mucayan oo adiga aad leedahay mustaqbalka wuxuu kuu soo bandhigaa waxaad jeceshahay
taasoo sababaysa in platformka aad u xiisto mar kastana aad ku jirto taasoo haddana ay ka dhalanaysa maaragtay in ay lacag sameeyaan marka waxaan dhihi karnaa waa program sidaas loo qorsheeyey attentionkiina inuu qabto engagement aan samayno mar kastaba share iyo like aan samayno kadib markaan samaynana ayagu ay faa'iido ka helaan arrintaas waxaan rabaa marka inaan wax yar ku daro haddii la ii ogolaanayo waqti dhiig saamaxaya okay waxaan kugu darayaa daqiiqad kale aan kugu darayaa marka ustaadka arrintuu ka dhawaajiyey oo ah saxaafadii iyo wixii la control jiray wixii qadka ka baxeen qof kasta asaga maanta saxafi ah marka waxaa soo kordhay in dadku ay samaystaan maxaa la yidhahdaa safxooyin aad u fara badan oo aad arkayso magacina magac dhawo ma fiicna laakiin waxaa jira waan aqaanaa qof Soomaali ah oo maaragtay internetka dadka caanka ah ka mid ah wuxuu leeyahay 100 iyo ma zaada safxadood uu leeyahay asaga kaligiis kullina waa soo geliyaa maxaa yeelay shaqo kale oo haya malaha hal content hadduu sameeyo dhammaantood uu soo geliyaa arrintaas waxay keenaysaa marka in muuqaalkaas uu noqdo muuqaal viral ah oo aad u faafa maxaa yeelay 100 iyo ma zaada safxadood la soo geliyay haddii la soo geliyo dadku waxay aaminayaan mawduucan inuu yahay mawduuc xasaasi ah maxaa yeelay meelo kala duwan ay ku arkeen arrintu ma ahan arrin yani maaragtay hal qof uu maaragtay uu wado marka taasna waa jirtaa oo arrinta maaragtay aad iyo aad ayay saameyn ku leedahay arrintaas aad u mahadsan tahay isla arrintaas waxaan ugu tegi doonaa ra'yul caamka iyo baraha bulshada siday u saameeyaan ama loo sameeyo iyo shakhsiyad gaara siday u hogaamiyaan aad u mahadsan tahay doctor sayid cali gaabale waxaan la soconaa jiilka maanta waxaa saameyn ku leh baraha bulshada dunida waxaa la yidhaahdaa globalizationka ama cawlamada dunida isu furtay safarkani ahaan jiray mid buuraha iyo badda iyo cimilada iyo jihada u socota juqraafiyadeeda waqti badan la gelin jiray maanta qofka dhalinyarada ah isaga oon ka bixin gurigiisa ayuu wuxuu u tallaabayaa waddankuu rabo dhaqanka iyo isweydaarsiga wuxuu ku imaan jiray socdaal maanta wuxuu ka imaanayaa internetka gudihiisa baraha bulshada dhaqamo fara badan oo qofku soo qaadi jiray hadda waxaa soo qaadaya internetka jiilkeenna maanta intee in la eg ay baraha bulshada kala kulmaan dhaqamo kuwii innaga nagula yaqiinay ee diinta iyo soomaalinimada aan ahayn ayuu ku soo kordhiyey jiilkeenna isla aragtidaasi ma dhihi karnaa jiilka maanta waxa samaynaya waa baraha bulshada oo ka awood badnaan kara hooyada aabbaha iskuulka iyo tacliinta uu ku soo qaatay su-aashaas waxaan siinayaa ustaad cabdiqaadir maxamed xasan kadibna waxaa raacin doontaa doctor zaciim insha allah suluusa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan mahad celinayaa bogaadinayaa dadaalka qoolka ah macadka ISOS ee jaamacadda Muqdisho kulankan iyo joogtada oo sanadlaha ah markasta lagu soo bandhigayo mushkilada jiro xalna loogu raadinayo waxaan rajaynaynaa insha Allah taala xulooshii halkan inay ka timaado intaa kadib waxaan salaamayaa madaxda jaamacadda Muqdisho boorka ugu horeeya iyo howlwadeennada kale goobjoogka iyo ardayda iyo marti sharafta intaa kadib runtii baraha bulshada haddaan Soomaalina waxay ku soo aadeen xilli waddankeenu uu burbursanaa kontarool badan uusan jirin dhallinyaradii ay ku hafteen ku maashoobeen ayay ku soo aadeen waxay u noqotay runtii dugsi ama iskuul ay wax ka bartaan ka badan xarumihii kale waxbarashada ama dugsiyada iyo jaamacadihii waqti badan baa lagu bixiyaa dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee adeegsada waqtiga badanna ku bixiyo dheefta ugu yarna ka helo haddaysan dheef jirin xataa dhib ku qabo marka waxaan dhihi karnaa qabatinka ee qabatimeen ayaa waxay keentay wax badan dhaqamo badanaa soo kordhay oo laga bartay dad badan oo xataa caqiida ahaan Soomaali jirkii ka ah laakiin waxyaabo kala faafinaya inay ku bataan oo meeshaas saameyn ay dhallinyaradeenna uga yeelato waa jirtaa sidoo kale dadka waxbarta
ardayda ugu badan oo annagu aan la macaamilno oo dhallinyaradii ka mid ah runtii dhibaatooyin badan ay ku qabaan. waxaa ka mid ah qofka dhalinta yar ama arday ha ahaado ama yuusan ahaanina inuu aamino xiriirka uu la leeyahay baraha bulshada sida uusan uga maarmin inay la mid tahay sida baadka iyo biyaha uusan uga maarmin ama dharka iyo dhuuniga siduusan uga maarmin in ay tahay. tusaale yaraan soo qaadanayaa agosto bishii lasoo dhaafay agosto sanadkan ayaa wasaaradda waxbarashada shirkii imtixaanka shahaadiga lagu soo dejinaya natiijada lagu sheegaya jawhar ka dhacay ayaa bayaankii shirka markuu dhammaaday kadib bayaankii lasoo saaray waxaa ka mid ahaa in xarumaha waxbarashada laga mamnuuco taleefanka internetka ku xidhno smartphone-ka. kadib xarumihii waxbarashada waa iskuullada waaye waxay isku dayeen inay fuliyaan markii la waayay si kale oo lagu maareeyo oo dhanka wanaagsan in loo adeegsado maaragtay lagu booriyo ardayda oo la baray ahayd, laakiin xalka ugu fiican ayaa sidaa noqday wuuna ahaa ficlan markii la fiiriyo. ardayda hadda markay bilaabeen dugsiyadii inay maareeyaan oo ay fuliyaan go-aankaas heer qaranka ah ee la soo jeediyey, ardayga marka maamulkii uu mobaylka ku qabto uu dugsiga la soo galo ee laga qaado matalan ganaaxa jiro, ganaaxuna 15 maalmood in laga hayo, 3 bilood laga hayo, 6 bilood laga hayo, lacag yar oo ganaaxa la saaro, dugsigii oo dhir ku beero, waxyaabo noocaas ah jira. marka maamulkii ama macallinkii markuu ardaygii mobaylkii ka qaado wuxuu door bidayaa 15 maalmood ee laga hayn lahaa in asaga la haydiyo, amaba laga yaabo sababtiisaba in dugsiga uga baxo. meeshaas marka waxay ku gaarsiinaysaa qofkan in asaga la yeeshayba meeshii asaga maaragtay wax ka kororsan lahaa ama wax uu dadka ugu kordhin lahaa in la haysto uu yahay, maskaxdii laga haysto uu aamino mobaylkaas la-aantiis caawa inuusan seexan karin. marka taasa waxay ku tusaysaa la qabsigii dhibaatooyinka kale ay ku qabaan. waxaa ka mid ah dhalinyarada waxbarashada kala duwan imtixaanadii saameyn ay ku yeelato marka la qaado imtixaanka shahaadiga waa aragteen dhibka ka taagan si loo maareeyo tan xakamaynta iyo saameynta imtixaanaadka iyo waxaan ka dhigi rabaa su-aal madax bannaan dhaqan ahaan iyo ma noo soo saaraan baraha bulshada jiil anaga aan ogeyn. dhaqanka waan sheegay dhaqanka inta wanaagsan intay ka faa'iidayaan waxaa ka badan inta kale ee maaragta taban ee aan wanaagsanayn. hadday noqoto muuqaalkii iyo is-ekaytaysiintii dadka meelaha ay ku soo daawadeen, haddii ay noqoto afkaar iyo maxaanku dhahaa ay ka mid tahay qabyaaladii iyo cudurradii bulshada Soomaaliyeed ay lahaayeen, waxyaabahaas waxyaabaha dadku ay ku maashoobaan waayo kaada warsata. way kugu soo laaban doonaa. waxaan siinayaa Dr. Zaciima, maxaad ku dari lahayd jiilkeenna baraha bulshada miyay la wareegeen? si fiican, bismillaah. xaqiiqda waxay tahay dhammaan hadda haddaad fiiriso dhalinyarada qaabka ay u labisato, qaabka ay u hadasho, waxaa wax fara badan raad ku leh waxa ay ka soo arkaan baraha bulshada. tusaale ahaan UNICEF waxay qabatay daraasad bay samaysay. daraasaddaa waxay soo saartay 70%, soo wax weyn maaha, 70% yacni oo dhalinyarada ka mid ah, gaar ahaan dhalinyarada Afrika laga sameeyey, waxay ka qaataan dhaqanka iyo anshaxa iyo weliba fikirka ama attitude-ka itijaahaadka waxay ka qaataan yani baraha bulshada. oo wax aad u naxdin badan, u walaac badan waaye. UNESCO oo iyaduna samaysay daraasad 2022 waxay tiri baraha bulshada waxaan ku tirin karnaa inay tahay waalidka saddexaad. ilmuhu haddii hooyo aabe ay leeyihiin 2 ah, 3 waxaa ku ah bay yidhaahdeen baraha bulshada, sababtoo ah dhaqan raac xad dhaaf ah baa ka jira bay yidhaahdeen, oo dhaqankii halkaas in aad ay u soo minguurinayaan oo fakerkii halkaa yacni waxay ku leeyihiin modernization baan helaynaa, nolosha casriga ah baan rabnaa inaan la qabsanno, taasoo keenaysa marka inay lumiyaan culture-koodii, inay dhulmiyaan anshixii iyo dhaqankii, in wax aanan lagu aqoon jirin bulsho ay maanta dhici karta inay caadi la noqoto. marka halkaa waxaa ka soo baxayso
in dhaqankii asal soo jireenka ahaa uu baaba'o dhaqan cusub oo modernization loo bixiyey ay la yimaadaan dhalinyarada taasoona dhib ku ah nolosha dadkaasi meesha ku nool waa mahadsan tahay دكتور زعيمة إسلا أديك ربا سؤاشة وسعد قادر بالله قيب أهان كان سراع صوته جوابه وحبرشة مركل الجوجو استعمال كبرها بولشة وموبايل كلا جلو سلبي تهاي الله حكمية سل الله حكمية عقبة أنت الله وكوية هاي وحبرشة إياه هي صلاة سلو runtii marka isla waxaan isla wada ognahay dhammaanteen maanta cidda ugu fududaysan ama dadka la yiraahdo limited income waaye ama low income waaye caruurtooda waxay wataan smartphone telefoonna way wataan sida doonaan dhibaataha u hayso laakiin mobile smart ah may wataan dhammaantood gaar ahaan markay arday yihiinna waxaa jira wax la yiraahdo isku saamowaan ardayda oo markaa mid kale hadduu soo qaad kan kale uu ka rabo taa waxay keentay marka in dhammaan ardayda waxaa la dhihi karaa 100% horta inay mobile wada haystaan wada haysashadaas marka waxaa kala duwan galaaska marka lagu jiro sidee xaaladdu tahay iyadoo daraasad baa laga sameeyay UNICEF aa sameysay ay hog inay meelaha hadda lagu dhowdhow Soomaaliya ma ahayn laakiin meel lagu dhoway ka sameysay waxayna daraasadan soo saartay 60% ilaa 90 globally horta waxaa la sheegay 60% inay dadka ama ardaydu ay galaaska ku isticmaalaan mobile phones inay ku isticmaalaan kuwa ugu roon waxa waaye baa la yiri kuwa markay soo galaan ka ilaaliya laakiin way haystaan qaarkood waxay awood u yeeshaan inay iyagoo galaaskii ku haysto ee ugu yaallo xafiiskii inay gudihiina ay ka dhagaysanayaan oo dhigu wax ugu jiraan waxaa ka mid ah imtixaanaadka oo uu noqday aalad lagu qisho imtixaanaadka lagu qisho ayuu noqday nolosha hadda jirtana waliba markuu AI-ga soo baxay maxay ahayd artificial intelligence wuxuu noqday in uu sii kordhiyey ku xirnaanshaha ardayga uu ku xiran yahay smartphone-ka uu ku xiran yahay taasoo dhib ku noqotay daraasadii maxaa yeelay macallinku wuxuu leeyahay 45 minutes ayuu wax ku soo diyaariyey cashar ku soo qorsheeyey galaaska markuu yimaado ardaygii wuxuu ku mashquulay telefoonkiisii 45 arday yani minute casharkii uu ku soo talagalay maba dhici karto in ardaygii uu ka wada faa'iidaysto ugu yaraan waxaa la sheegay celcelis ilaa 20 minute ee ugu horeyso keliya in ay macallinka iyo ardayga isla socdaan wixii ka dambeeya weliba waa dugsiyada sare iyo jaamacadaha wixii ka dambeeya ardaygu wuxuu galay nolol kale iyo meel kale ayuu aaday taasoo wax badan ku keentay marka education performance-ga iyo achievement-ga ilmaha ama ardaydu ay ka keenaan waxbarashada leanno waxaa ku dhacay wax la yiraahdo tashattut ad-dihni oo maskaxdiisii ayaa qaybsantay marka waxaa ku adkaanaysa inuu daraasadii yani aad ugu dhaadhacdo oo hadhow awood u yeesho imtixaankii uu ajiif gareeyo markas fiican marka dhibaatadaas way sii badanaysaa the good news waxa waaye in hadda dawladdu ay go'aan gaartay in laga joojiyo laakiin waxa yaab leh in kaga qosli rabaa in waalidiin intayna soo waceen iskuulaadka barnaamijka xamdi hoos yimaada ay yiraahdeen adinku casrigee joogtaan mobilka ilmuhu baabuurkii ama bajaajkii buu ku raacaya quraacda buu ku cunaya sidee baad uga xadidi kartaan ama uga qaadan kartaan in dagaal nooca ay waalidiintu qaarkeed ay keenaanna waxay noqotay wax kaloo iyadana sii badinaayo ku xirnaanshaha ilmuhu ay ku xirmaan موبايل فونada aad baa u maasantahay aad u maasantahay Dr. Zaima Saad Qadir siinaya waalidka kaalin ku leeyihiin xakamaynta mobilka iyo galaaska ardayda runtii waxyaabaha dhacdooyinka aan la kulan waxaa ka mid ah matalan waalidku sida laftiisa aragtida uu ka qabo la dhaqanka mobilada waxa laga yaabaa ardayga marka iskuulkii uu fuliyo xeerkii in waalid erga uu yimaado asagoo daba socdo waxaan ku dhahaa mobilkii ardaygu leeyahay soo sameynaa cudurdaar matalan aniga iskale iyo maaragtay anuu iga soo qaaday waxyaaba noocaas oo kale ah marka waxaa jirta qiso ardayar oo quraanka dhameeyey macnaha waalidka meesha uu ka joogo qaarkood arday yar oo quraanka dhameeyey oo xaafid ah oo tartan galay oo meel fiican gaaray ayaa waalidkii wuxuu yidhi maxaan kuu sameeyaa abaalmarin markaasaa wuxuu yidhi aabo waxaan kaa rabaa mobile iphone inaad gadid oo mobilada qaaliga oo internetka ku xirmo sidii uu sameeyey
ardaygii bilayar gudahood 3 bilood macallinkii ayaa waalidka ugu yeeray dugsiga oo yidhi wiilkii qur-aankii sidii kuma ahna maxaa dhacay xaafadda siduu ku yahay wuxuu yidhi macallinow aniga sabab u ah sababtu waxay tahay mobaylkaasaan u gaday 24 sac meeshaas kula jira saamaynta halkaas yuu ka galay marka haddii aan la iska kaashan oo maaragtay xeer gurigiina ka jiro dugsigiina ka jiro maaragtay hadduusan jirin waa dhib sida loo maareeyo laakiin tiknolojiyada iyadoo lala dagaalayay oon cadow loo arkay in la jiheeyo qaabkii ardayga ula dhaqmi lahaa markuu xaafadda joogo waqtina uu nasto waqtina uu waxbarto waqtina maaragtay uu wax ka faa'iidaysto marka dhinaca wanaagsan in loo jiheeyo laakiin taasaa naga maqan weliba kulliyadaha saxaafadda jaamacadaha iska leh sida jaamacadda muqdisho kale waxaan uga baahannahay wacyigelin fara badan oo dhinaca togan loo adeegsado maxaan ku dhahaa oo lagu tababaro bulshadii dad saamayn lahoo ku wanaagsan dhinacaasna in la soo saaro dhanka wanaagsan aan uga faa'iidaysano insha allah aad umahadsan tahay waxaa noo socda banalkii muhiimka ahaa ee social mediaha ama digitalkas u qaabeeyo bulshadeenna soomaaliyeed dhaxtaal waxaan samaynayaa su-aal aan weydiinayo ardayda si gaar ah gacanta taago qof inta xiisadda ku jirta ama goobta waxbarashada uu joogo jaamacadda dugsigii sare uu soo dhameeyey aan isticmaalin iska ilaaliyey digitalka si gaara mobilka internetka ma jiraa arday aan ku isticmaalin galaaska mobile 2 qofood 3 qofood 4 qofood meeshaasi saameyn ba'an ayuu inagu leeyahay waana laga dareemi karaa goobeena waxbarashada qayb walbay ahaataba su-aasha waxaan siinayaa ustaad sayidka waalidiinta doorkooda ku aadan in goobaha waxbarashada ay gacan ku siiyaan macallimiinta iyo bahda waxbarashada waqtigan faraha badan ee ardayda iyo ubadka ka qaadanayo in la xakameeyo kaalintooda ma ka soo baxeen sidee waqtigaasi loo caymin karaa maadaama hanti uu yahay waqtiga sudhow aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan is leeyahay xakamaynta adeegsiga baraha bulshada iyo telefoonada iyo qalabka la midkaaba kuma koobno waalidka waxay saamaysaana ilmaha qura maaha dadku dhan bay saamaysaa haddii waxbarashada hadda laga cabanayo oo fasalkii uu saameynayo shaqadii uu saameynaya oo wax soo saarkii qofku saacadii uu shaqaynayo oo goobta shaqada jooga ayay saameynaysaa oo noloshii kale maxaan ku dhahdaa maalinlaha ayay saameynaysaa marka si guud xakamaynta baraha bulshada iyo adeegsigooda waxaa ugu muhiimsan ugu weyn ugu awood badan xakamayn dawliga xakamayn dawliga inay dowladda xakamayso waxaa tusaale noogu ah shiinaha qaanuun waxaa soo baxay sanadkii hore mise sanadka bilowgiisa dalka shiinaha saacadaha qofka da-diisu 18 ka yar tahay uu isticmaali karo baraha bulshada iyo barnaamijyada gamiska ciyaarahaba oo la isku daro inay saacada cayiman tahay matalan qofka da-diisu 18 ka yar tahay isbuucii 20 saacadood ka badan ma ciyaari karo geem nooca doonta ahaato 20 saacadood ka badan ma isticmaali karo baraha bulshada nooca doonta ahaato toddobaadka cidda amarka soo rogaysa marka waa dowlad cidda fulinaysana waa shirkadii barnaamijka sameynaysa oo marka hore caddayn qofka da-diisa in caddaysa laga rabo kadibna saacadaha waxadida laga rabo cidda koowaad horta awooddaa fuli karta waa dowladda innagana dowladda uma awoodo oo farsamo ahaan iyo awood ahaan uma gaarsiisnaba inay shirkado ku qasabto inay dadka saacadaha u xadidaan midda labaad waa waalidka marka waalidka horaa looga hadlay oo dhowr jeer horaa la taabtay qoyska qofku ilmaha guriga jooga iyo wixii la midka ah waalidka marka hal qodobo muhiim oo ma ku daraya hadda ardayda iyo waxaa laga hadlayaa dadka da-doodu moogtahay waxbarashada gaadhay laakiin waxaa ka halis badan ilmaha mobilka ku koraya maxaan ku dhaha ku garaadsanaya ku afbaranaya maxaan ku dhahdaa intaanu waxbarasho dugsi quraan iyo dugsi kaleba gaadhin mobilka la falgalaya ka hore la qabsigaa hore ee da-da yarna uu ka halis badan yahay la qabsiga da-da weyn xakamaynta ugu dambaysa waa xakamaynta hay-adaha ama ha noqoto goob shaqo ama goob waxbarasho ha noqoto waa cidda ugu sahlana xakamayn karta ilamana aha inay culays tahay in goob waxbarasho laga mamnuuca telefoon lala soo galo
goob shaqo laga mamnuucay telefoon lala soo galo siyaasad walba waxay leedahay culayskeeda in la fulinayo laakiin kama maarmayso in la mamnuuco in goobaha waxbarashada xilliga imtixaankiisa looga mamnuuca si lamida xilliga waxbarashadana looga mamnuuco aad u mahadsan tahay ra'yul caamka maanta soomaalida waxaa haga inta badan baraha bulshada qayb ahaan waan ka soo dhawaajinay ustaad uu tilmaamay gaabane qof samaysta 12 page laba qof oo isu tagtay qof ay ku xiran yihiin flows badan mutaabiciin fara badan iyo algorithmka labadaasaa ugu waaweyn waxyaabaha saamaynta ku leh sida qayb ahaana ka mid ahayd marka ustaad inta in la egay ra'yul caamka baraha bulshada qaabaya waad mahadsantahay mar kale sidaan hore usoo sheegnay algorithmka wuxuu u samaysan yahay waxaad jeceshahay inuu ku tuso marka 4 kooxood aan dhihi karaa ayaa saamaynta horta sameeya kooxda koowaad waxa waaye ama waxaan dhihi karaa waxa koowaad waxa waaye contentiska iyo waxa la soo gelinaya internetka waxa la soo gelinayo haddii waxa aad jeceshahay ay yihiin ama wax xiise leh oo emotionkaaga iyo maaragtay dareenkaaga qabsanaya waxay u badan tahay inay ku saamayso maxaa yeelay bini aadan aad tahay ugu dambayntii marka contentyada la soo gelinayo oo weliba kan soomaalida bismaana adduunka ah ayaa qofkii keenaya inuu mar kastaba ra'yigiisa u saameeyo oo maaragtay siduu u fakari lahaa iyo go-aanada u qaadan lahaa iyo wax kastaba saameyn ku yeeshaan qodobka labaad waxa waaye dowladaha si ku talagal ah ayay u sameeyaan inay saameyn sameeyaan baraha bulshada waa platform furan cid kasta ayaa wax soo gashan karta ayaguna wax la soo gelinayay cid soo gelinaysay waxa shaqadooda ma ahan waxa shaqadooda ay tahay dad badan inay daawadaan ay ku xirnaadaan si ay lacag u sameeyaan ujeedooyinku way iswaafaqayaan dowladuhu marka si ku talagala ay waxay u sameeyaan inay ra'yi mucayan ah intay qaabeeyaan inay baraha bulshada ku faafiyaan ayagoo isticmaalaya maaragtay baraha bulshada kala duwan platformyo kala duwan dood abuuraya bulshaduna ay aaminayso arrinta laga doodaya inay arrin saxa tahay مثلا دولتي اسكو قرحنيسا ماركت دليشيدي روها اسكن دبوليسا اما سي راي عصب اي ربط برشدي كيبي سو كله marka dawladuhu saameeyna sameeyaan qodobka saddexaad organization معينه jira oo u design gareysan u sameeysan loo abuuray inay bulshada raayigooda bedelaan haday noqoleed siyaasadda iyo haday noqoleed waxyaalo kale waliba badanaa waxaa la arkaa xilliyada doorashooyinka ay dhacayaan waad maqasheen oo ahaa organization anletika in magaceeda la dhahay amalena oo ingiriiska xarunteeda ay tahay inay doorashadii maraykanka saameyn ku yeelatay oo maaragtay Donald Trump inuu soo baxo ay sabab u ahayd because of ra'yi caamka ay abuureysay iyo maaragtay wax sida ay baraha bulshada u isticmaalaysay iyo waxa ay sameeynaysay darteed marka organization mucayan oo lacag ka sameeya inay ra'yiga caamka bedelaan dowladahana uga qaata ama dad kale uga qaata lacag ayaa jira oo ra'yiga abuura oo contenty intii create gareeyaan boqolaal kun oo maaragtay page ku faafinaya dadkuna ay aaminayaan inay sax tahay waxa ugu dambeyntii saameeya dadka influencers loo yaqaano oo malaayiinta ay ku xiran yihiin qaarkood isku duuban yihiin qaarkood isku duubno kali u socdaan ayaga marka waxay faafiyaan waxa oo loo dhiibo ayay faafiyaan waxa laga yaabaa in koox mucayana ay markaas kiraysato ayagoo ka gambanin lacag ka qaata kadibna ay ra'yi caam abuuraan oo dadku ay aaminaan marka waxaa la wada hadal haynta lahayd marka dhowrkaas koox ayaa saameyn samaysa waxay la tahay aad u mahadsan tahay ustaad Cabdullah Raagid maxaad raacin lahayd isla su'aashan qaabeynta ra'yul caamka baraha bulshada oo aan aragnay maanta saameynta ugu leeyihiin horta qodobo badan horaan loo sheegay saameynta ra'yul caamka yes waxa adduunka oo dhan kala simanahay waxa jira sida baraha bulshada ra'yul caamka u saameeyaan oo ustaadku qodobeeyay oo ah in si abaabulan dadka wax loogu soo dhex tuuro afkaar gaara si abaabulan loo gado siyaasado si abaabulan loo iibgeeyo maxaa ku dhaca character assassination ama sumcad dil si abaabulan loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan dagaalo sokeeye iyo colaado annaga markaan dhulkeena joogno qabaa'ilka iyo reeraha marka adduunka kale la joogana dalal iyo maxaan ku dhahdaa iyo axsaab iyo balaayo kale la sokeeye marka taa adduunka ayaan maxaan ku dhaha kala simanahay
waxaa inaga inoo gaara Soomaali ahaan marka horena aan isku sifayno lagu sifeeyo bulsho warka iyo xogta iyo raadinteeda iyo dabagalkeeda oo jajaban laakiin waxaa intaa inoo dheer kalsooni darrada inaga dhaxaysa dagaalada sokeeye waxa la midka ay abuureen walwalka qofka Soomaaliga uu la nool yahay oo mutilaanta mar walba uu filaayo in mushkilad iyo cilad iyo halis meel badan ka soo socdo marka walwalkaas iyo kalsooni darradaas raayir caamka ku jira marka hore gaasiis ku jira baraha bulshadu uga sii dareen xasaasiyadda deegaanada reeraha u dhaxeeyay aad si qeyb dabiici ah weliba u kiciyeen qodobada hadda ustaadku sharaxay algorithm iyo flowriska sida lagu helay iyo sida lacag looga sameeyo baraha bulshada waxay ku xiran tahay sida carabaabay waxa dadku jecel yihiin ama dadka caadifadooda la hadlaya waxyaabaha inaga caadifadeena la hadlaya waxa ka mid ah colaadaha waxa ka mid ah nacaybka waxa ka mid ah waxaan ku raahdaa aflagaadada iyo adiyada iyo cayda iyo faanka reeraha iyo waxaasoo dhan oo caan baxayna TikTok la isku soo galo reeraha tartamaya la yidhaahdo dad idaacado ugu furan yihiin social media keliya teen reeraha caayaan deegaana caayaan marka wixii adduunka ka jirayna waxay noo dheer kalsooni darro iyo walwal Soomaalida loo nooshahay oo baraha bulshadu ay uga sii darayaan adoo maasanta sayidka yaa maqlay toddobaadkan in dowladda Australia ay ka mamnuucday dalkeeda caruurta inay isticmaalaan baraha bulshada da'da ka hoose 18 imise qof aan maqashay that's the good news ma u baahnaanahay in Soomaaliya haddaan nahay in go'aankaasi mid la mid aan qaadano majority adoo mahadsantihiin yaa note samaystay note oo su'aalaha isu diyaariyey imise qof aan note samaystay waa la badan yahay doorkiina soo socda Dr. Zaima waxaan ka sheekeynay saameynta ay nagu leeyihiin ra'yul caamka baraha bulshada shakhsiyaadka ay sameeyaan misleadingka iyo tadliilul iclaamka iyo macluumaadka lumiska ah sidee ayay tahay in bulshada ay u kala xushaan macluumaadka u dheefsadaan kuwa qashinka ah wasaqda ahna ay isaga shaqshaqaan sudhow xaqiiqdii waxa waaye annagu haddaan Soomaali nahay marka horeba dadka waan ka dambeynaa oo waxaan nahay dad aan waxna baarin waxna isweydiinin wixii loo keenana sidooda ku qaata marka haddaad tahay qof raba hadda inuu naftiisu asagu maareeyo xakameeyo waxaad u baahan tahay source-ga aad rabto inaad information ka qaadato marka hore inaad garanayso oo aad raadsato reliable sources ama meelaha lagu kalsoonaan karo ee xogaha laga helo waxa aad u baahan tahay inay ku caddahay iyo meesha aad u raadsanayso waxaan maanta dhan fartaa iska socotay xag u cararayso way adag tahay inay ku dhacdo wax sax ah sababtoo ah waxaa naloo soo sheegay wax la yidhaahdo emotional manipulation oo ah xogtani horta sideedaba la iskama soo qaada iyadoo natural ah laakiin waa la soo qurxiyaa attraction baa lagu sameeyaa si uu qofku usoo jiido markiiba u hagto saas darteed aad saad uga badbaadto waxaas waxaad u baahan tahay marka hore inaad taqaano waxa aad rabto iyo meesha aad ka helayso inaad horay waqti ku bixiso oo aad qorshayso qodobka labaad aan isleeyahay waa muhiim waxa waaye waxaad u baahan tahay inaad wax leedahay cross checking aad ku samayso xogaha aad helayso si aad ku kala soocanto waa inaad dhowr meelood oo aad ku kalsoon tahay oo aad ka baari karto xogta iyo xaqiiqadeeda inaad taqaano qaybta ugu daran ee ugu dhibka badan waliba dadkeenan waaweyn ku yara adag waxa waaye inaan kala garan weyno markii hadda artificial intelligence-ha uu yimid waxaaba khatar u galaysaaba wax iska ah been cad inaad run u qaadato marka waa inaan baranno qaabkee lagu kala sooci karaa waxyaabaha feega ah ee aan jirin ee wax kale lasoo dul saaray iyo waxyaabaha dhabtaasna u kala garanaa iyaduna inaanna u baahanaa ugu dambeyn media literacy aan u baahannahay inaan haysano oo aan runtii si digital well-being-keena uu u fiicnaado inaan garanayno markaan galayno aan furayno bahalkan inteen rabaa maxaan rabaa ma waxaan rabaa inaan warka waxa dhacay adduunyada gudaha ee bannaanka ogaado haddaan rabo halkee ugu fiican oo xog dhab ah aan ka helaya inaad taqaano markiiba haddaad rabto inaad wax entertainment ah aad ka samayso weebaa kugu roon oo dhaqankaagana dhib aan u keenaynin oo aadi karta haddii marka hore marka aad hubto
meesha aad rabto iyo waxa aad rabto horeyna aad u kala soocatay meelaha waxa saxda laga helo iyo meelaha waxyaabaha qurmoon ay ku jiraan waxaa kuu sahlan marka inaad aado meesha saxda ah arrin haddaayay la sheegay wax yar rabaa inaan ku daro annagu waalidiin haddaan nahay dhammaanteen smartphone-taan wadanaa 24 saacada gacanta noogu wada jiraa ilmihii in la yidhaahdo marka ma isticmaali kartid xoogaa culays baa ka jiro saa darteed waxaan u baahan nahay wacyigelin xoog leh in la sameeyo dheeftiisa aad baa looga hadlay laakiin khatarahiisa in laga hadlo khataraha inta badan waxaa la sheegaa waxyaabaha psychological issueska laakiin physical baa jiro ilmuhu meel mugdi bay la galaan ay ku fiirsadaan marka loo diido indhihiisa markaa hadda shucaaca ka soo baxaya ayaa dhibaato u geysta waxaan u baahan nahay marka number 1 horta wacyigelin in loo sameeyo number 2 in la bixiyo koorsooyin ku saabsan media literacy waxaa kaloo u baahan nahay in dad khubaro ah ay dadka la wadaagaan meelaha reliable informationka laga heli karo dadku ma wada heli karo laakiin dad isku xil saaran u baahan nahay howlaha kala shaqeeyo bulshadeena Soomaaliyeed taasoo u sahlaysa marka qofkii wixii uu raadinayay meeshuu toos ula aadi lahaa aad u mahadsan tahay Ustaad Cabdiqaadir Maxamed isla su'aashaasi maxaa raacin lahayd waa mahadsantahay waxaan ugu batay tiraabtii waxaan rabaa inaan ku sheego hadduu alla iyo bulaatid tixdan waxay ka hadlaysaa oo qoray dhibaatooyinka laga dhaxlo iyo matalan in dhalinteenu wax badan oo dheef aysan ka helin dayacado waqti dhantaal cibaado inuu jiro kala mashquulin xubnihii qoyska khilaafka ka dhexdhexa qoyska qolof jooga iyo maxaan ku dhaha qalbi maqan dayac ka muuqda qayb ka mid ah gabdhaheena iyo hooyooyinka qabatin sidii bulshada maskax guurid iyo aqoon ka guurid hal abuur iyo xirin la dirir dhiirigelin ka hayaamida dalka abuuris fursado buufis baahin waxyaabo ka reeban sharci ahaan iyo caqli ahaan hoose dhac waxbarasho sababid baagamuddo iyo musaarad ka tegid xishoodkii samaa iyo dhiirigelin fasaad iyo akhlaaqnimo intaasay ka hadlaysaa hal daqiiqaan kusoo koobaa waxaan idhi waxaan ku halqabsanayaa barbaarta oo dhallinyarada ah oo qaybta ugu muhiimsan ee adeegsata baraha bulshadeed maskaxdii barka yeesho maanka baahi u keenay barbaaray madambaa baraha bulshadeed balwadii sideeda naftu ay baratay barbaaray madambaa baraha bulshadeed buufis noogu baaqo beenta aan ka baqay beenta aan ka baaqsan barbaaray madambaa baraha bulshadeed xaqa baalmaray oo baadilkii u adeego barbaaray madambaa baraha bulshadeed baalashiisa iblaysku bele uu ku faafsho barbaaray madambaa baraha bulshadeed buundadii imtixaanka boor weyn ku daboolay buundadii imtixaanka boorka weyn ku daboolay barbaaray madambaa baraha bulshadeed wasaarad dhaqaaliyo baaqamuddo horseeday barbaaray madambaa baraha bulshadeed xishoodkii ka bayro baahinaya fasaadka barbaaray madambaa baraha bulshadeed waqta ii barakaysnaa waxsan aan ku buuxin barbaaray madambaa baraha bulshadeed badankeenna naqaaday barna aanna baray barbaaray madambaa baraha bulshadeed waqtigii burbursho dhafarkaa nagu beeray barbaaray madambaa baraha bulshadeed badankii ilaahay oo salaad lagu beelay barbaaray madambaa baraha bulshadeed badanaaba qoyskii bildhan ay is arkaynin barbaaray madambaa baraha bulshadeed qoysaskeenna ba'shoo khilaafkooda badshay barbaaray madambaa baraha bulshadeed dhalinteen badankeed midba dhan isu buusay barbaaray madambaa baraha bulshadeed barbarkaa midkii ah baariisku ka shaxaayo barbaaray madambaa baraha bulshadeed dumarkeen bardhaatoo ubadkeen basanbaashay barbaaray madambaa baraha bulshadeed gabdhaheennii bilnaa cawradoo bidhaanshay barbaaray madambaa baraha bulshadeed bedankeena saaqay barna aanna tarayn barbaaray madambaa aad iyo aad u mahadsan tahay Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Xasan markana u sacbino please
waxay qayb ka tahay wacyigelinta iyo in jihada saxda ah loo hago dhalinyarada kaalintiina la joogaa intii nood samaysatay su'aalaha Dr. Cali ahlan wa sahlan oo ku soo dhaweynayaa adaan loo bilaabaya qaanuunka barnaamijka 2 daqiiqo ugu badnaan su'aasha toos loo aado جزاك الله خير تعال يا الحروم العليا بربارة الباشا فردنا إيو زعيما الحاكم يحابي نمتها بربارة اسكو جرى سومان قبل اسكو كبير يا قبل اسكو بربارة فردنا وما سنتي من هذا برامج آدي أرسلاء وأروح الأيسوس يونيفرسيتي هي مرتي شرفتا رمان إنك طبعا وحان اسكو أكسون نهاية طبعا سيقبل شيكين من دلكينا وعي حمدا الجهل يا كسوغن هاي با قيبكا دبعتدين السياسية هي تبلشدن يا waxaan oo dhan wacyi xumada sheegteen ila sheekeeyay ma qayb muhiim ah ka ah طبعا mar haday sidaa tahay waxa qaybta labaad ka shaqo la'aanta ama shaqo yarida bulshada haysata waxa jira bulshadeena ma shaqayso dad waa baagamuudo saadaraada waqti dheer waxay u helayaan in internetka aad u isticmaalaan bay waqti badan u helayaan marka waalidkii oo wacyigiisi iska liito shaqo la'aantii oo dhibaato ah sharikaadka internet kale oo maalna ka samaynaya hawlo badan oo kale oo raasi loo sheegay oo wax aan adeegsanin dowladii baa adeegsan marxada adeegsan waa la isku dilay teknolojiyada dagaal ku galay wax ka soo jiida kara waxa marka meeshaas ku jira waxay la tahay marka internetka sharikaad baa gacanta ku haya dawladna waa jirtaa hadday labadaas iskaalmaystaan lama xakameyn karo sida adduunka lama yeeli kara miya haddii la iskaalmaysto oo go'aan lagu qaato waa su'aashaas aan rabaa bal inaa ka doodaan qodobka labaad ahaan oo muhiimka ah jaamacaadka iyo macaahidda cilmibaariska iyo iskuulaadka iyo dadka khubarada ee leenahay dowrka ku yeelan karaan carruurteena inay baraan internetka sida loo isticmaalo oo inuusan shar ahayn uu fiican yahay loo sheego laakiin meesha isaga dilaysana la baro oo ay soo baxaan dad shaqadooda ay saa tahay oo ururada bulshada iyo hay-aadkeena aqoonta ay ka wada shaqeeyaan labadaas meelood ayaa mulaaxadayda ku egtahay waana ku mahadsantihiin asalaamu calaykum ومahadsantaad sacay بسم الله الرحمن الرحيم سؤال هذا توس وياه waxaan rabaa inaan weydiiyo ciyaarta qofkii waa qaatay yani waxaan rabaa jihada loo socdo mustaqbalka yaga tusaale oo kale dowladda awood ma leh policy regulation ma leh waalidka wacyigooda ku wajahanta uu yar yahay dhaqankana waa dhaqan waxa isugu sheego dadka wax ma akhriya dadka iyaguna 7% waa dhalinyaro xaaladda haddii lagu jiro xagee u socdaa waa maasan adoo mahadsan tahay xildhibaanayaasha waxaan ka codsanaa su'aalaha inay qortaan aniga mana qorayo mana ku celinayo cala duula loo geli doonaa insha allahu tacaala waxaan siinayaa ninka dhalinyarada ah qof kale magaciisa inuu ku bilaabo aad bay u fiican tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحالي لهذا عبد الناصر ديرو وحان كسو على كلية شرعية يا قانونك تابعة مقدشو سؤال شيء وحي كسو عطا دكتور سيدك وحاولي مراحل من الشلاء يعني مدك وبدن انت بدن رجالك استعمالان وحاولي تيك توك أنا بارتانا نص الشيء يقولي سامن أبى نيجاتيف وأنت بدن مسكحة وحجارتينية مركز دكتور حل من أركتا إن جبي أهان تسبة تيك توك على برد جرايو هذه جواب تروها طاي بدل كيس محا بوحين كرايا هذي ما ينتهينا هذي ما ينتهينا سدال لو حديد كرا هذا ما صنطه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وبكر أحمد محمد وكمدة عدد وحكبرت جامعة المقدشو قارهان تخصص علوم السياسة إمام الوجود أنا وحق سؤال كومنتي أو استراحة سؤال شهر مرنا يا سؤال شهر بحثاي وحاسقار ويدينا يا أستاذ عبد القادر محمد حسن أقوياء الصوماليين وكشري شركة جوهر soo saaray ardayda iskuulada laga mamnuuco telefoonada ama smartphoneska
bedelkii ay ku fikiri lahaayeen yani in laga mamnuuco miyaynan ahayn inay ku fikiraan in ardayda mamnuucista bedelkeeda loo sameeyo activities kale ay kaga mashquulaan xilliga ay ku guda jiraan daraasadooda iskuulka iyadoo oo loo sameynayo break time-kii haddii ay noqon lahayd ama waqtiyada kale ay jaanis ku heli lahayd inay isticmaalaan telefoonka inay ka fikiraan halkaas oo kale oo iskuullada soo jeedina loo sameeyo midda kalena baraha bulshada hadda loo guuray comment waaye maadaama baraha bulshada loo guuray oo xilligan digital age-ka la maraayo oo dadkii dhan ay u wada guureen baraha bulshada inay isticmaalaan oo percentage ugu badan bulshada inay isticmaalaan baraha bulshada aqoon-yahanka Soomaaliyeed waxay ahayd inay ku dhiiradaan iyagana inay ku guuraan baraha bulshada ay ugu geeyaan halkaas cilmigii iyo aqoontii ay xambaarsanaayeen wacyina ay ugu noqoto dadka isticmaala baraha bulshada aad maasantahay gabdhahaasi بسم الله ميعي وليلة أحمد جافو وحق سعودة جامعة أمة الصومالية جارعان كلية لغتها وحا سؤال ميديني يا دكتور سعيمة وكذا شيء رقمها رقمها حنحن أو دليلتين جعلن كديان أيوه هستدين إسلام كا أو سيجار لغير وينه مش يعني أو بطان أيوه وسمينا ودوي كرقمها حنحن حرب الله اللي كره حتى هدين قطوع عيجرين وعيجرينtaas naqaab loo celo sameyn kara hadda qof oo wadada ku aragtid oo wax uu sameeynayo badana xitaa dhalinta wiilasha iyo gabdhaha oo aan age 20 sano meelahaas jiro ayay wadada fiidaan ku duwayaan hadana waxaan wax xun waayo xigtaan update mati waxaas marka wacyigelin ama xal ma loo helin karaa wacyigelintaas naqaab loo celo sameyn karaa si guud masiga waa mahadsantahay billah awala salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سلام دي مقعي وزهرة عبد الرزاق وحان كسعودة جامعة مقدشو وحان دكتا كلية السوشيال وورك مركا كومنتي وحو سوجيران iyo su'aal موضوع هذا وحواي دي مقاومة برشدة iyo saameynta ay ku leedahay social media social media marka fiirisid dadka soo gudbiyo information-ka waxay u badan yihiin dad aanan haysanin certificate aanan aqoon dheeraad u lahayn aan cilmi u lahayn bulshada waxay u soo gudbinayaan akhbaar u soo gudbinayaan automatically marka fiirisid bulshadiina waxay ka aaminsan badan yihiin dadkii cilmiga u lahaa dadkii kale oo iska hadlaayay oo kaliya oo u fiirinayay qaab how to get money lacag see ku helaa iyo waxyaabaha soo idin marka fiirisid bulshadeena waxay u badan yihiin dadkaas kale oo aanan cilmiga iyo aqoontiga u lahayn marka sababaha inay dawladeena ay fiiriso qofka akhbaarka soo gudbinayo bulshada inay si taxadar leh ugu fiiriso tan xigtana waxa waaye dhalinteena iyo qof walba oo addicted ku ah social media inaan ahna waqti inaan su'aal isweydiino nafsiyan anaga waxa ma nahay falawa ma nahay misaliina nahay like macnaha anaga ma wixii aragna iska raacayna like share wax walba siinayna mise anaga hogaaminayna waxa aragna oo muhiim oo aragna ka dhex baxsanayna waa maasantii جميل جدا أنا ما أتصنت هاي قبلها قبل ناس قبت كذا على فريدة وأكو حكتاج سات على كل حاجة أولاً السلام عليكم مقعي وعمة الرحمن وحنا من كلية إيكونوميك وحاقبة سؤال حاول الدكتورة زعيمة سؤال شيء بحواي وحيد هذا الدكتورة لحد لاب إلى صار بنتا رنت مركي فيريو يعني إني كون فافتو ضدك كوذو وحنا مركا إن سايكولوجي مركي فيريو محاكينا عيدي متاس دعنا بنادم كأوصى بيسن يعني إني بنتا كجعلهين وكقادة وقيهين mise beentii ama ka xamaasad badan runta mise wax awood ka baxsana jirto qariinada qof kasta la socdo keenaya in beenta ay saas zayd u faafto marka su'aashii way iska gaaban tahay maxaa beenta isbiid fara badan siiyey oo runtii u gaabisaan ustaadka loo keeno magacayga oo ku bilaabo waa doctor cali cumar abati ahna gudoomiyaha bulshada rayidka iyo xuquuq insaanka banaadir sidee ay warbaahinta bulshada dib ugu soo celisaa nidaamka waxbarashada maanta جميل جدا قدومي على صعبي ومحي فائدوينك iyo faa'iidada isticmaalka warbaahinta bulshada ee waxbarashada saddex waa maxay shanta qadar ee warbaahinta bulshada
afraad sidee ayay warbaahinta bulshada u saamaysaa waxbarashada ardayda wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxbarashada cabdiqaadir qusaysa taasaan aasaas ka dhiganaynaa ustaad cabdiqaadir wuu qortay haddii hal daqiiqa aan ku ballanno hal daqiiqa waaye reer jaamacatu muqdisho way yaqaanaan sikin kuma darsan kartid marka waana la badan yahay hal daqiiqa leedahay sikin ha ku darsan khayr allah ku siiyo أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام مجعي محمد عيسى محمد الله. وحنا كمل هاي بعد وحبرشة هذا وفرح سنة إن كل نوع وكلا قيب كهذا. هل دقيقة استوسوك وكمان أخويانا لبانا لك يو حلير السنة أستاذ أبيس وإن السلامي إنما كسوق الكلياشة مسكدي سؤال شيء ذا نحي نخندون تعالى سيدا ودوقنا هاي مراها الشدة سامين تودا كلي وحبرشة ما هدل قرن يساميسي مدحنا يساميسي سيدا ودوقنا هذا وحرك يسا إنه يرو تيك توك استعماله وحبدن بحجري أما فايل أها أيا كسامين بدن أخويان كي دلالي توسكن وحان مركبة سيدا لوهي كرا إن مدحنا يفهمان سامين براه بالشدة إن حل واحد. وما تصنتهاي. أنا ما تصنتهين بركم كسؤالين يا سؤالك جوابين عدو إلى يراضو وحنكم بلا بيا دكتور زعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرت لبس سؤالات توصي وسعودي. حنحاول دقيقة نسوقه بدونا إن شاء الله. ما شاء الله. سؤال شكوات بحياه لقن دورسون كجلس ذي وحلوه بدل كرام. أرديت بأيودي سي. runtii horta dhaqan doorsoonka marka hore dhaqanka waxaa la rabaa inuu ka soo hagaado guriga inuu ka soo hagaago haddii markii hore aan qofka guriga laga soo tarbiyeynin markaan ka hadlaynaa hadda maxaan ka hadlaynaa baraha bulshada haddii ilmahayga anigu aan la fiirsado waxa ay fiirsanayaan oon weliba aan idhaahdo waxaas naga bedel wax xun waayo كان ودا كاسان فرسانين عنه المهم already وحو برتي وحلا يراهدو وحييني وحلا يراهدو وفي عيني وحلا ودي ده يقرنايو يو وحلا قولي هو كلا قرنايو هكذا سوتو حكو بحايو إنه دخل كي حما الموسي automatically أو direct هذا هو قصبين هذا هو تصار ونقطة إن هذا وحلا وقولين أسألنا هكذا كاقادنايو وقضيانايو لكن هذا أبوه أما هو يدو في الهيئة وابن حني وحبا وابن أي فرصة المعنى إذا يسبح كل قدر بحقول قدر ما أنت لو مصور ومن سوق أركب وارك دونا ما أنت واركنا عدك عدك فرتا من تشتو تسالي يبقى باين هذا السيو ويل كي أنا عن بالي وير ويل كلام جلاس ولا جراي marka wiilka waalidkiisu waxay ku diideen inuu isticmaalo smartphone oo dhan waa loo diiday mana laha account mala xisaab mala yani gmail ma laha wiilkaygana wuu leeyahay waxay dhigtaan dugsi dhexe marka wuu ka baray wuxuu ku waxbaan rabaa inaan qof u dirsadeen waxaad isiisaa gmailka waxba muusan u arkin uu siiyey gmailkii markuu siiyey wax fiican muu ku sameeyey wax aad u xun buu ku sameeyey waa ogow arday laga soomiyey inuu isticmaalo smartphone inuu account yeesho telefoonkiisa baa u soo noqday annagu gabdhaheena way isku xiray way isjeegarayaan wiilasha wiil ka mid ahaa soo arka wuxuu yidhi historyga oo hebel baa fiirinayay wax aan yaable baan ku arkay arrinta anagu xataa waa naxnay waxaan niri ilmihii maxaa ku dhacay cunuga intaa waxaan ka soo gaareen isagii aan waraysana wuxuu yidhi maalin baa jirtay oo saas ay dhacday ha la fiiriyo maalin hebel iyo maalin hebel haddii waxaasi la fiirsaday anigu u yihi wixii baan samaynay sax bay ku soo baxday waxaan go'aansanay markayna wiilka yani iskuulkii lagala hooyadii waalidkii lagala hadlo asagana aan ka reebay inaysan qof dambe isticmaalin akaunkiisa micnaha waxaan ula jeedaa keliya wax ma tarayso in dadka kabti lagu rido wixii laga reebo waxani waa wax socda lagama hari karo laakiin waa inaad ilmahaada u tarbiyeyso nolosha sugaysa iyo waxa ay la kulmi doonaan marka waxaa la rabaa dhaqanka gurigu ka soo bilaabanaya
haddii guriga uu hagaago inta ka dambena way hagaagaysaa dhammaan qof walba guri buu ka yimid haddee tarbiyadaa soo qalloocabto way adag tahay in la toosiyo kuwa dambe laakiin annaga ka bulshahaan mas-uuliyada naga saara dhaqanka inaan la dagaalamo inta tabarteedna baana kula dagaalamaynaa su-aasha labaad waxay ahayd beentu maxay aada ugu faaftaa waa very simple runta qofka markuu sheegaayo uma baahna inuu maanta dhan wax uu yacni dhar fiican u geliyo oo uu qurxiyo uma baahna si natural ah buu isaga sheegayaa laakiin beentu waxay u baahan tahay in juhdi la geliyo la qurxiyo wax laysku soo xirxiro qofka wax magaratada marka way ku dhib badan tahay inuu been iska fahmo markiiba taa waxay keenaysaa inaad sii sheergarayso qof walba aad u dirto adoo la yaaban qaabka loo soo bandhigay baa ku keenaayo inaad wax rax u qaadato ood adigu ka mid noqoto xataa kuwii qaybiyey saasay ogaa marka orod badan tahay oo maxaa jiro emotional mobilization baa ku jira oo qofkii waxaa la qabtay maskaxdiisii oo ah in waxaan wax qurux badan looga soo dhigay uu markiiba jeclaan lahaa dadka kalena inay arkaan labadaas oo dhan ay ku socotay hal su-aal oo doctorka ka mid a waxaan rabaa inaan ka jawaabo arrinta ku saabsan sidee loo xakameeyaa maadaama dowladdii joogto dadkan haddana ay jiraan shirkada noo haya arrintan runtii waxaan hubaa bini aadamku waa wadajirka ayay wax ku yihiin haddii si wanaagsan loo wada fadhiisto arrintana dhibaatada ay nagu haysan miiska lasoo saaro dowladduna ay hoggaanka iyadu qaadato oo marka la isku yimaado leeda maxaa xal noo ah ummado badan oo faafreeb ku sameeyay baa jiro wixii aynan rabin inay innahooda arkaan annagana kuwa waan ka mid noqon karnaa oo at least waxaan ka xiri karnaa janalada aan loo baahnayn inay waddanku soo galaan taasna waxay u baahan tahay keliya juhdi anigii adiga naga yimaado dowladdii la tagno ka daba qaylino shirkadihii ka daba qaylino ugu dambayntiina waxaa laga gaari karaa qorsho midda ku saabsan jaamacaddan dhibaatada ugu weyn waxa waaye waxaan dhahnaa waxaan hala joojiyo wax hala joojiyo kuma joogsadaan waa inaad badiil keentaa alternative inaad keenta waa ilmahaaga haddaad u diidayso inay isticmaalaan social mediaha waa inaad wax bedelaayo u keenta u ogolaata meel ay kubad ku cayaaraan meel ay ilmo kale iskula cayaaraan tartanna inay same yacni haddaadan badiil keenin waxaani jooyi ma soconayso biniaadanka waa inuu wax ku mashquulo ay jiraan aada mahadsantahay oo mahadsan tahay waa mahadsan tahay kama badna insha allah waqti asiisay toorabati su-aashaada hal habaan ka qaatay way badnaayeen laakiin waxay ahayd sidee warbaahinta bulshada uga qayb qaadan kartaa horumarinta waxbarashada saasaan u fahmay waxay uga qayb qaadan kartaa horta annagoo iskaashana kulligeen adiga aad bilowdid anigoo ku xigsada dhammaanteen qof kastaba xagasha uu ku jiro inuu uga qayb qaato mas-uuliyad wadareed inaan wada qaadano ayaa maaragtay ay tahay insha allahu tacaala ardaygii weydiiyey shirkii jawhar markay soo saaraysa wasaaradda waxbarashada inay mamnuucdo adeegsiga moobaylkaas internetka ku xiran xalka ayaa sidaa u arkay sababtoo cabashadii aa badatay insha allahu tacaala badiilka kale ee wax lagu bedelayana waxaan rabnaa shirweynaha si dhaba loogama hadlin marka hadda aan ka reebna shirkan waxyaabaha dardaaranada uu soo saarayo iyo qoraalada wasiirka shalay uu ballan qaaday in loo gudbiyo oo wax ka qaban doono yaa insha allahu tacaala talooyinka lagu dari doonaa sidii badiil kale loo heli lahaa insha allah aada umahadsantahay aada umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsantahay su-aalaha iyo hal qodob oo doodii hore ka dhinaaba laba daqiiqa isku haysataa jamiica waxaan ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya tacliiqaadka faalooyin saamaynta hal fikrad baan jecelaana soxo faafitaanka iyo saamaynta isku mid maaha iyaynaan ku celcelin macalinka iyo sheekha iyo qofka waxa wanaagsan sheegaya waxaa ka saamayn badan qofka tiktoka ka dhaansahay faafitaanka iyo saamaynta isku mid maaha qofka 2 milyan daawataa laga yaabaa laakiin 2 milyan ay ka fahamto inuu qof liita yahay oo karaahdo waqtiga isku dhaafaysa laakiin hore u dhaafto in waxba ka qaadin marka ayaanay fikradaasi dhaqanin macalinkan dugsiga dhigaaya qur-aanka dadka baraaya fasalka jooga casharka bixinaya kama saamayn badna qofka social media jooga uu ka faafin badan yahay fikradaha laga qaadanayaan oo kala duwan qodobka labaad ee aan rabo inaan isku qaado su-aashii doctorka ay sharafii tahay inaan meel u fadhiya ka hadlayo ahayd haddii ay dowladda iyo iskaashadaan iyo shirkaduhu waxba laga qaban karaa xakamayn ma lagu samayn karaa baraha bulshada qayb waa qayb farsamo oo aqoonyahanka technical yaqaana ka jawaabi kara
laakiin annaga waxaa naga maqan shirkadaheena teknolojiyaddu waxay iibiyaan adeeg internetka inaad gasho ku sahlan yani inaad tiktok la xidhiidho oo youtube la xidhiidho ku sahlan iyagu tiktok iyo youtube ma maamulaan marka xadidaadda dowladaha kala samayn karayaan ma samayn karaan maraykan iyo china iyo australia markay xadidayso shirkadda tiktok baa amarka lagu saaraya inay xadido waddankaa wax laga isticmaalo innaga waxaa la samayn karaa qiyaasteeda in accesska oo qofku applicationka u helayo la xadido taasina in daatada ku isticmaalayo aan la geli karin oo kale baan lagu soo rogo ama socodkiisa la daciifiyo oo internetka siduu degdeg ugu shaqaynayo la dhimo waxyaabo technical ama farsamo ayay noqonaysaa ayaan isleeyahay qodobka kale doctor wuxuu ahaa qoyaan iyo hay'adaha waxbarashadu waxba ka qaban karaan arrintan ubadka iyo waxbarashada iyo baraha bulshada haddii aan waxaan isleeyahay fadhiga wax lagala kacayo ama qodobada shirka ka soo baxaya lagu darayo waa in lagu daro wacyigelin la iska kaashado oo joogto ah oo hay'adaha caafimaadka iyo hay'adaha waxbarashada iyo hay'adaha warbaahinta laga kaashado oo shirkadaha isgaarsiinta laga kaashado oo waalidka ku socota oo ku saabsan ubadka yaryar maxaan ku dhahdaa 2 jirka iyo 3 jirka iyo 4 jirka saamaynta uu telefoonku ku leeyahay in waalidka si waafiya oo faahfaahsan loogu sharaxo oo lagu celceliyo oo laga dhargeeyo hal qodob baa soddon sakana ku siiyo ardayda iyo kasoo qaybgalayaasha halka kala kacaan rabo qodobkaas waxa weeyaan masalada raaya caawka ee muhiimada ka hadlayo la xiriiro laba masalo qof walba maanta waxaan kula tali lahaa internetka ka baadho masalada koowaad waxaynu tusaalooyin sida baraha bulshada iyo warbaahinta raaya caawka u samayso masalada koowaad waxaa la dhahdaa operation mockbird baa la dhahdaa haddaad google garayso waad heli doontaa wuxuu ku saabsan yahay mockbird inaan waqti badan geliyo ma rabo sidii warbaahinta joornaalka iyo telefishinka iyo idaacadda loogu adeegsan jiray saamaynta raaya caamka hadda waxaa bedelay oo google garay kartaa baari kartaa hasbara waxa la dhaho hasbara sida baraha bulshada dowladuhu ugu adeegsadaan inay raaya caamka dhalin rogaan oo ay mataqaanaa dembiyada iyo jirimooyinka iyo xumaanta ay sameynayaan ay ku dhaqaan ka hore si ayaaba lahayd ka dambana israa'iil baa leh operation mockbird baa la dhaha ka hore ka dambana hasbara la dhaha qof kasta oo xog ka baadha waxaa tusaale cad u arki doonaa sida baraha bulshadu ay maanta xukumaan ay caamka ee loogu adeegsado balaayiinta lacagta loogu bixiyo qodobkaas aad u mahadsantahay doctore ya haye hal daqiiqo ku siiyo xaggee loo socdaa su-aasha yes haddii sida hadda aan u naalno aan usii soconno waxaan u soconnaa meel xun aan u soconnaa ujeedaa bulsho waxaan noqonaynaa oo maaragtay baraha bulshada laga hogaamiyo bulsho ay hogaamiyaan dadka maaragtay dadkooda waalan ayaan dhihi karaa dadkooda maaragtay muxuu ahaa caafimaad ahaan aan fiicnayn dadkooda nolosha ka dhacay bulsho ay hogaamiyaan oo ra'yiga ka dhegaystaan aan noqonaynaa daawada marka waxay noqoneen oo aan isleeyahay in dadka aqoonyahanka ah iyo indhargaradka ay baraha bulshada soo galaan waa garoon furan oo mahadsantaa oo ay soo geliyaan wax wanaagsan ayaga si ay u balans gareeyaan kale waxay sameynayaan aad u mahadsantahay doctor zaciima 30 sakiin tiimka barnaamijka talo ku bixi haddii lagu yidhaahdo hal jumlo oo tala ah 30 sakiin bismillah tawakkal allah waxaan soo jeedin lahaa howl baa la qabtay waana maanta oo dhan baa laga hadlaayay haddii guddi loo saari karo maadaama jaamacaddu ay leedahay dhalinyaro fara badan oo jaalis hayso energy uu ku jiro in guddi loo saaro markaa ka shaqeeyo sidii uu ka shaqayn lahaa in content fiican la soo geliyo baraha bulshada si adlisti ay u yaraato waxyaabaha xun ee la soo geliyo laakiin dhibka naga haysto dadka way naga xoog bateen wayna laqeen si aysan noo laqeen marka waxaan u baahannahay inaan helno guddi hadda halkan laga qabtay oo isugu jira kuwa technical ah iyo kuwa aqoon leh iyo weliba kuwa yaryar oo teknolojiyada aad u fudud intoodaas inta isku tagaan laga shaqeeyo maanta wixii ka dambeeyo in baraha bulshada kuwooda weliba ugu dhibka badan in waxa maanta yaalla wax ka bedelan oo qurxan ay keenaan oo badiila aad u mahadsan tahay doctor zaciima psychologist ilaad ka socotaa waa mahadsan tahay soddon sakiin tiimka barnaamijka taladaada waxaan dhihi lahaa in halkan aan ka abaabulno weliba aan ku darno bayaanka ka soo bixi doona halkan
in qorshaha lagu daro goortay noqotoba shirweyne qaran oo maaragtay lagu faaqidaayo oo waqtiga hadda laga helay ka badan maaragtay xal loogu raadinayo baraha bulshada iyo adeegsigooda. aad mahadsan tahay ustaad maxamed cabdiqaadir xasan gudoomiyaha midowga waxbarashada soomaaliya anuu sacbino soo sikin taladaada. aniga waxaan ku dari lahaa talo oo baraha bulshada dadka waa sameeyeen dadka waaweyn habeenkii waa ku dhafraan waa is ognaa kulligii talo waxaan ku dari lahaa platformka waxaa lagu qasbay oo dowladaha ka jira yani rasmiga shaqeynaya waxay ku qasbeen in dadka privacy-gooda iyo waxyaalaha khusuusiyaadkooda la ilaaliyo waxay keeneen marka nidaamyo oo qofka xorriyad lagu siinayo wax badan iskaga kontrooli karo shakhsiyan hadduu awood u leeyahay inuu iskontrolo waxaa ka mid a kontentiyada aadan jeclayn markaa aragto platformka wuxuu leeyahay inaad tiraahdo not interested aad tiraahdo si mar dambe aadan kusoo bandhigin waxyaalaha noocaas waxaa ka mid a inaadan follow garayn waxyaalaha dadka meelaha soo geliyaan iyo page-gooda waxaa ka mid a in maaragtay aad screenka waqti iskaga xirto aad tiraahdo saacad si markii la gaaro baraha bulshada iyo wax kastaba iga xir waa leeyihin kulligood laakiin waxay u baahan yihin wacyigelin iyo aqoon iyo isticmaal in la isticmaalo si aan u xakamayno. injineer sayid cali gaabale computer science lecturer muqdisho university aad u mahadsan yahay istiqraagi 30 sekin. ciwaanka guduuxa muqaabeynta bulshada iyo baraha bulshada ana waxaan ku darayaa baraha bulshada si abaabulo waxaa loogu adeegsadaa in bulshada dib loogu qaabeeyo dadka u adeegsanaya waxaa ka mid a dad aan Soomaali ahayn oo nala jooga marka ha loo dul lahaado faragelinta shisheeye ee baraha bulshada maraysa ee ka shaqeynaysa in raayal caamkeena dib u qaabeyso. aad u mahadsan tahay Access 2025 shirkii 12aad aan u sacbino waxaan ahay Aweys Xasan Maxamed oo inoo xilaya session-kan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.